buugga maankoriye milicsiga maalmihii mudane iyo macalin Professor Maxamed Barkhad Miigane ayaa habeennimadii xalay lagu soo bandhigay Hotel Race ee magaalada Boorama. buuggani oo laga qoray Allah u naxariistay taariikhneedkii Professor Xildhibaan Maxamed Barkhad Miigane Xamaal ayaa waxa qoray ardayda wax ka barta jaamacadda Hargeysa oo markii ugu dambeysay marxuumku macalin loo ahaa. munaasabada in lagu soo bandhigay habeennimadii xalay buugga maankoriye ayaa waxa ka soo qayb galay professor kala duwan wax ka dhiga jaamacadda Camuud University ee magaalada Boorama. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaanki Axmed Maxamed Geele aqoon-yahano waxgarad dhalinyaro iyo waliba ardayda jaamacadda Hargeysa iyagu qoray buuggani maankoriye ee socotay munaasabada in lagu soo bandhigay buuggani ayaa waranba halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah iyagu soo agaasimay bandhiga buuggani maankoriye iyo professor kala duwan wax ka dhiga jaamacadda Camuud University ee magaalada Boorama iyo goobjoogaha bandhiga buuggaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa editionkiisu wuxuu noqon doonaa dhowr goob oo lagu soo bandhigi doono dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland 2005 waqtigii doorashada golaha wakiilada uu ku jiray waxaan ka xasuustaa beed hadaladii lagu amaani jiray professorka oo buugga ku jira oo dhamaantii buugga aan akhriyay waxa kamid ah mashooga iftiimaya mugdimiya ku doorsana niman maamuli karayn mugdimiya ku doorsana aqoon baa wax maamushe mideeyaha codkaaga sii taas way hirgashay mideeyaha codkii waa la siiyey inta yara tixdaas waxay ahayd tix lagu amaanaya professorka waxay ka hadlaysay kow aqoontiisa waxay ka hadlaysay waayo aragnimada uu Soomaaliland u lahaa waxay ka hadlaysay kartidiisa iyo dadaalkiisa oo aan marnaba aan ahayn mid good galaysa buugga iyo qabdismeedkiisa dhalinta qortay si wacan bay u qoreen waan dareemi karaa qoraalka culayska uu leeyahay waliba gaar ahaan marka af Soomaali wax lagu qorayo hawl kale ayuu wataa waabka Soomaaliga xeerar ma laha waa wada jaban yahay si loo yiraahdo iyo si loo dhiganayo ilaahay baa garanaya say kula noqoto ma loo dhiga saasoo haddana tahay anu buugga markii aan akhriyay maalin baan ku akhriyay aroor hore ayaan bilaabay waa joojin kari waayay because sababta wax kale ma ayna waxay buug si wacan baa loo qoray وهذه هذا runtii qurux badan qab dhismeedkiisa wuxuu ka kooban yahay 8 cutub ayuu ka kooban yahay maadaama ka buugu ka hadlayo taariikh nololeed sida ku qoranna magaca waxa weeye waa maankoriye nin qalbi furan buu ahaa cid aan la colahayn waa intaan ka aqaanay bulshaawiya qabiilku aan u ahayn mabda iyo oo dadkan kooxda isku raaca ma ahayn nin waliba saaxiibkii buu ahaa ardaygiisu waa isku sanfurraano saaxiib buu lahaa macalinkiisana saaxiib buu lahaa odaygiisa iyo siyaasiga iyo sheekha iyo cidii bulshada qaybaheega kala duwan runtii intaan ka aqaanay wuxuu ahaa nin u furan qalbigiisu furan yahay isagoo Hargeysa joogo oo jaamacadda Hargeysa u shaqeeya annana halka wixii war jiray ama hadii uu arko heedar development oo Hargeysana soo maray waxna bixinaya telefoon buu noo soo diri jiray qolada ka war hay annana waxbay nasiyaan ama jaamacadaha wax siiyaan ama oo nala talin jiray runtii marka wuxuu ahaa intuu macalinkaana saas u ahaa siyaasigana sidaa uu ugu dhaqmi jiray nin laba wajiila ma ahayn nin dadka u furan oo qabyaalad ku shaqeyn buu runtii ahaa oo sidii bulshada ugu shaqeeyay ugu shaqeyn jiray haddaad eegto daahir maxamuud xadi wuxuu ka sheegay waxaad arkaysaa hadallada halkaa u dambeeya waxaan baroordiiqda ka sheegay mudaniyo wuxuu ahaa macalinka weyne inta mudan ayuu ugu mudnaa magacyada guud ee fiican ina Xaaji Ibrahim Cigaal Siiraanyo hebel Cabdiraxmaan Tuur aadan cadde Sayd Maxamed Cabdullah Xasan taariikhda Soomaaliya inta mudan ayuu ugu mudnaa magacyada guud cashirkana habku marinayay una maqraynayay murtidiyo siduu sheekamaal nin sheekamaal u ahaa moogtahay aad u sheekamaal buu ahaa murtidiyo siduu sheekamaal uga madiixayay masaakiinta goortu arkiyo mudana waayeela siduu ugu micinayay midigu siinayay ayuu meelu joogaba khalqigu maanku ku hayaaye ama marida shimbiruhde ama marida buuraha gasaa madag dhabaysa shimbirtii baa jiq bigana wani fiican jiq shimbiraha ku sheegaya shimbiraha sheegay inuu fiican marka waxaan u arkayaa nolosha marxuumku inay afar dhinac leedahay afar dhinac oo inta badan aanay wadaagin dadyowga kale aan laga helin buu leeyahay ta koowaad wuxuu ahaa sida la soo wada sheegay macallin
tacliinta ku jira aqoon-yahan ayuu ahaa macallin buu ahaa aanan ka bixin macallinimada aanan ka bixin xataa hadduu wax kasta galo siyaasad galo baacmushtar galo oonan ka bixin ka labaad wuxuu ahaa nin diinta ku toosan oo suufiyu ahaa oo suufiyadana aad iyo aad u haysta oon suufiyada ula jeedno inuu qofku iimaankiisa dhisayo waayo suufiyada waxaa loo yaqaanaa markay sax tahay inuu qofku iimaankiisa xoogga saaro oo suufiyadu waxay yidhaahdaan markay macnaynayaan suufiyada waa inaad adduunyadu ay gacantaada ku jirtaa oo inaan qalbigaaga ku jirin yacni adduunyadu markaad ku dhex jirtid ama shaqaysanaysid ama wax kale aad ku jirtid waa inaynan qalbigaaga ku dhicin adduunyadu laakiin waa inaan gacantaada ku jirtaa marka suufiyadana aad buu ugu talax tegay sida la soo tilmaamay waxa kaluu ahaa siyaasi aad u xeel dheer buu ahaa waxa uu ahaa nin bulshaawiya oo bulshada aad ugu dhex jira waxa uu ahaa nin ka shaqeeya khayrka oo khayriya buu ahaa sidaan odhan karno oo NGO-ya uu aasaasay iyo shaqooyinkuu qabtayba waayo waxaa aad loo tilmaamaa ceelka ugu muhiimsan ee maanta boon soo gaadhsiiyey biyaha looga soo qaado ee waxay ahayd hay-addiisa guus la yidhaahdaa iyo ama hay-addii uu ka mid ahay guus ayaabaa u samaysay ceelkaasi inuu wanaagsanaa waxaa lagu garanayaa anigu waxaan joogay isagoo magaalada boorama laga qaxay oo booyada iibiyey oo meel dhigay oo ceelal qoday oo guus la baxay oo biyaha boon ka cabto iyo kuwa boorama laga cababa ka shaqeeyey markii lacag la helay ee qandaraas boorama lagu qaatayna iska dhaafay mar haddii aasaaskiisii la arkayo cidda wax ka qortayna aan maanta sida Soomaaliya ama Somaliland tahay ee qabyaaladda la isku taageero aanay ka muuqanin wanaagiisa intaas ay naga filan taariikhdii facaweyneyd ee professorkeena ama xildhibaankeena Maxamed Barkhad Miigane laga qoray aan maanta ku gardaadinayno magaaladii Boorama tii hore waxay ahayd Hargeysa lagu soo daafuray maanta waxaan maxaan ku dhahaa ku gardaadin doonaa ama caawaan u wada fadhinaa inaan Allah u naxariistee Maxamed Barkhad Miigane taariikhdiisii ku suntanayd intuu nabadoonka ahaa xildhibaanada ahaa macallinka ahaa uu sheekha ahaaba ayuu buugaasi ka kooban yahay geestooda waxa iyaguna halkaas hadallo kala duwan ka soo jeediyay samar ahaantana bulshadu faahfaahin uga bixiyay waxyaabaha uu ka hadlaya buugani qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Hargeysa oo iyagu qoray buugani maan koriye milicsiga maalmihii mudane iyo macallin professor Maxamed Barkhad Miigane Xamaal waxaana yiraahdeen mahad gaar ah waxaan u haynaynaa qof kasta iyo cid kasta oo ku lug yeelatay buugan soo bixidiisa buugan waxaan bilownay 2015kii ilaa iminka 2017kii 23kii August uu soo baxay ilaahay ma mahadle sida qiimaha leh oo buugaas ku bilaabmay ee ku dhamaadayna aan ugu mahad celinaa kulay Axmed Dan yara daba socdaaye reer Boorama buuri gool baad ka dhalisay reer Hargeysa anagu waxaan aaminsanahay inuu Maxamed Barkhad Miigane aanu idinka xigno dhamaantiin oo maaha intuu wax noo taray hadday noqoto siyaasadda dhinacayagu bay ahayd oo Hargeysa buu badnaa hadday noqoto jaamacaddana alxamdulillah marka anagu gurdambaysiisii iyo garabkiisii buu ahaa aan nahay marka waxna laga madhalin Axmedow waxa kale oo ku daraya inta kulay Maxamed Barkhad Miigane taariikh mugle oo miisaan lagu ku leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliya soo dhan tahay anaga wax noo dhigay 4 bilood aan ahayn 2015kii naga dhintay runtii dad badan oo aqoon weyn u leeyahay jirta oo naga badan anaka kalgacal badan oo u haynay awgeed baa sababtay buugan inaan u qorno runtii buugu maaha wax fudud bilowgiisu anaga hami buug inaan u qorno kasoo garan weyna waxaan uga abaal gudno markuu dhintay kadib taasaa keentay markaa inaan usnaraahno bal daayartaydin ka yar ugu yaraan taariikhdiisu ha noolaato gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaake Axmed Maxamed Geelle oo isaguna halkaas hadallo kala duwan ka soo jeediyay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa dareenka koobaad ee iskugu nimidnay maaha buuga ee weyneen u ducayno Allah u naxariistay Maxamed Barkhad Miigane in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariisto dhamaanteena fariinta leeynooga tagay waxay tahay adduunyada waxaynu dhalanay inagoo dadka hareeraheena jooga ay dhammaan qoslayaan oo ay ku qoslayaan inuu qof wanaagsan u soo dhashay in yarba waxay nasiib u heshaa adduunyada markay ka baxayaanna in loo ooyo qosolkii shalay lagu qaabilay in oohin lagu sagootiyo laga ooyayo inuu qof wanaagsan adduunyada saagay laakiin in baa nasiib daraata oo adduunyada markay dhalanayeen lagu qoslaa
maalintay ka dhimanayaanna lagu qoslaa oo la yidhaha qof shar badan oo ummadda dhibe baa ka baxaya bagu ka tegey waa kii ninkii carabkii lahaa welidta yaa ibnu aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika idaa bakow yowma firaaqika daaxikan mabsuuda waxaad ku dadaashaa inaa aadanow adduunyadan adigoo ooyayaa dhalatay dadka kugu hareeraysay inna wada qoslayaane maalintaad tegayso car iyagoo ooyaya ka teg adiguna aad qoslayso ood ku qoslaysa adduunyadan intii yarada joogtay inaad saamayn wacan kaga tegtay oonad ciil ka qabin sannadihii aad joogtay inaanad hawl iyo dhibaato ummaddaanad ku soo kordhine horumar iyo wanaag iyo weji furnaanaad ku kordhisay allah u naxariista waalidkeen in walbo ka soo qayb gashay allah uga mahad celiyo Suudaan Xasan Xaddi baada Suudaanka guud ee beelaha Makaahil oo isaguna munaasabadii xalay ahaa goobjoog ahaa ayaa markii mikrofoonka qaatay waxa ka warramay waxyaabo uu ka garanaya taariikhdii dheereed ee Professor Xildhibaan Maxamed Barkhad Miigane Xamaal waxaana hadaladiisa ka mid ahaa nin dhan kasta oo la eego hadduu miskiin xanaaneeyo hadduu macallin yahay tacliineed hadduu mid qur'aan yahay hadduu mid suufiyadeed yahay intaba ka soo shaqeeyey buu ahaa uu gargaari jiray ka da'da weyn lee liita ka danta yar leh ka itaalka yar leh ka cilmi u baahan ka caqli uu ku taageerayo intaba nin ka soo shaqeeyey buu ahaa ilaahay u naxariistaan leh annagu saasaan iskugu saaxiib ahayn iskugu xadra ahayn isugu wardi ahayn isugu sheekh ahayn waxaan leeyahay dhallinyarada ka soo shaqaysay reer Hargeysaad macallinkoodii ahaa jaamicadda u dhigi jiray marar badan oo anigu halkaa ugu iman jiray baa jirtay oo dee muraadaan ka leenahay halkaa ugu imanaynay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa isaga sababtay munaasabada lagu soo bandhigay buugani maankoriye milicsiga maalmihii mudanaya macallin Professor Maxamed Barkhad Miigane ayaa intii socotay bulshada waxay wada riyaaqday taariikhdii dheereed ayaa Allah u naxariistay Professor Maxamed Barkhad Miigane Xamaal iyo waxqabadii kala duwan ee ka geystay bulshada dhexdeeda waa Mustafa Caraale magaalada Boorama